noloshu waa kuu fududaanaysaa salaad iyo tasbiix culimmada badh baaba waxay yidhaahdaan oo wahal isalaatu ilaa tasbiixaatun salaadda lafteeduba miyay tahay tasbiix mooyaane oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa fii buyuutin aadina allahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walasaal ilaahay wuxuu sheegayaa guryo layna faray inaynu dhisno ilaahay buyuuddiisa tan masaajidda tan oo layna faray inaynu ilaahay ugu tasbiixsanno dikri ku wadno yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walasaal mufasiriinta badh baa waxay leeyihiin waa salaad baa la tilmaamaya gelin hor iyo gelin dambaba loogu tasbiixsanayo waayo waxay culammadu yidhaahdaan min aham maa yashtagil bihi اlmusalli fii salaati huwa tasbiix waxyaabaha ugu weyne ninka tukanaya uu ku mashquulaaba waa tasbiix oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam nin saxaabiya oo aan markaa aqoontiisu badnayn baa salaadda soo galay dabeetana iyadoo salaadda lagu jiro salaaddana waagii hore waa la hadli jiray waquumuu lilaahi qaanitiin intaanay soo degin salaadda adigoo ku jira baad odhanaysa war hebelow fadhiiso ama waxaa qabo waa la iska hadli jiray hadalku markaa mamnuuc ma ahayn kadib waxaa soo degay qur-aan tilmaamaya marka salaadda lagu jiro inaan wax kale la samaynin qaanita la ahaado saxaabi aan warkaa isagu la soconninba iyadoo safkii salaadda lagu jiraa midi hindhisay alxamdu lilah markuu intuu halkaa ka hindhisay buu taxmiiddii iyo wixii la samayn jiray khaarij asalaam marka la joogo ayuu la yimi dabeetana saxaabadii way yacnii u tilmaameen inaanu samaynin waxaas wuxuu arkay iyadoo aad isha loogu gubayo haddana wuu iska hadla wuxuu uhi war hooyadayn idinka goblantae maxaa iga eegaysaa muu tilmaamay warkiisii buu iska sii watay markii salaaddii laga baxay ayuu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam war waa kuma ninka saa yeelaya waa aniga buu yidhi ilaahay rasuulkiisu ima maagin ima caayin ima haydaartaymin buu yidhi weligay macallin ka fiican ma arag kaalay buu igu yidhi bes waanu imi buu yidhi markaanu imina wuxuu igu yidhi ina haadihi الصalaaة laa yasluxu fiiha shayءu min kalaami الnaas salaadatan warka dadka wax ka mid oo ku suuban in salaadda dhexdeeda lagula yimaadaa ma jira buu igu yidhi inamaa huwa التصبيح والتكبير وقراءة القرآن buu nebigu yidhi salaadi waa tasbiixaad iyo takbiiraat iyo qur'aan akhris weeyaan salaaddu intan bay u badantay waxay culammadu yidhaahdaan salaadda tasbiix baa lagu bilaabaa allahu akbar markaad tidhahda maxaad bilowdaa iftitaaxiyaadka qaybo ka mida baa tasbiixa subxaanaka allahuma bixamdi ama allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukrata iftitaaxiyaadka salaadda lagu bilowdo qaybo ka midi waxa weeyaan waa tasbiix marka la rukuuco maxaa la sameeyaa subxaana rabbiya alcadiimi baa la yidhaahdaa waa tasbiix marka la sujuudo maxaa la sameeyaa subxaana rabbiya alaclaa baa la yidhaahdaa waa tasbiix haddaanad faatixada aqoon inaad hadda soo islaamto maxaad samaynaysaa halka faatixada tasbiix baa lagu beddelaa waa tasbiixsanaysaa hadduu imaamku gafo oo uu sidii salaadda laysku ogaa waxaan ahayn uu sameeyo maxaa la sameeyaa subxaana allahi baa la yidhaahdaa waa tasbiix marka salaadda laga baxo maxaa la bilaabaa subxaana allah subxaana allah subxana allah waa tasbiix waxay yidhahdeen waa 7 meeloodoo ka mida mawaadicu salaadoo 7daba la tasbiixsado idan salaadda lafteedaba waxaynu odhan karnaa cumar bin khadaab baa waxa laga sheegay subxatu duxaa buu odhan jiray tasbiixda barqada yacni waa salaatu duxaa baa loo jeedaa idan salaadda acmaasha ugu weyne la qabtaaba waa inaad tasbiixsato waxaa kaloo qur-aanku ina baraya oo ilaahay rasuulkiisa loo sheegay wakhtiyada aad badhaadhana haddaynu ka soo warrannay marka dhibta la haysto ee dhibtu kugu dhacdo maxaa la samaynayaa baynu nidhi tasbiixaadkaa la badiyaa wakhtiga barwaaqada maxaa la badiyaa qur-aanka ilaahay wuxuu nebiga u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu tasbiixaadka badiyo bini aadamku marka uu badhaadho inta badan ilaahay wuu ilaabaa
waxyaabo kale ku mashquula aadanahan dambe aynu aragnayna cadalaadkiisaa buu soo bandhiga maalinta xorriyadda maalinta la dhashay maalinta cay dadku maxay sameeyaan yani dawladdu waxay muruq leedoo dhan bay soo bandhigtaa soo maaha xayaar iyo boodbood baa la bilaabaa soomaalidu markay calanka qaadatay maxay bilowday balkaalay carabay calanka walaale hees baa la bilaabaa iyo badhbadhaadhnay kacaanku marku dhashay yacni kibirkaa la bilaabaa bini aadamku inta badan marka uu xelaabuu kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istagna bini aadamku markuu wax helo ayuu kibirkiisu bilaabnaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi marka aad guulaysato aakhir suurad ahaan qur-aanka u soo degtay waa suuraةu nasr kaamila ilahay wuxuu nebiga ku yidhi ida jaءa nasru اllahi wاlfatx hadduu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashadiisa haddaad hesho nicmo aad guulaysato markii hore wuu cidhiidhi baa haysta waxaa la yidhi markaa cidhiidhigu ku haysto fasabbix bixamdi rabbik baa lagu yidhi markii hore uu cidhiidhiga ku jiray markii uu nicmaystay ee dowladnimadii islaamigii dhalatay ee gaaladii quraysheed uu jebiyey ee maka uu furtay waxaa bilaabmay qabaa'ilkii inay koox koox diinta u soo galaan caamil wufuud kolba qabiil baa yimaada maca boqorkiisii ama suldaankiisii ama caaqilkiisii isagoo wata oo la yidhahdaa reer hebel oo raba inay islaamaan baa madiine soo galay wufuuddii baa tiro badatay nebiga u imanaysay awalla qof qura markuu is idhaha diin u sheeg mid baa daba socdoo lahaa waa beentii ama waa saxir ama waa kan markana dadkii oo dhan baa diinta soo gelaya oo jamaaca uu soo gelaya koox koox ilaahay wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam idaa jaءa nasru اllahi wاlfatx haddii uu kuu yimaado ilaahay subxaana wa tacaala guushiisu iyo furashadiisa iyo nasriga haddaad aragto oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo ilaahay diintiisa koox kooxu soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi nebiga markaa ma badhbadhaan dhaqaad baa lagu yidhi ma ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u tasbiixso adigoo mahadnaqiisa ku dheehaya subxaana allahi wa bixamdihi dambadii oo weliba wastakfirhu wixii uun gaabis ama nawcun maa kaa dhacayna istikfaarka dabagee waxaad camal samayseen oo dhamm ilaahay nicmadu idin siiyey uma cuntanto sidaa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa jannada qofna camalkiisa kuma galo macnaheedu waxa weeyaan jannada camalku ma gooyo laakiin sabab buu u noqdaa bima aslaftum iyo bima kuntum tacmaluun ba'i sababiya sabab buu u yahy laakiin uma aha amankii ma aha ma gooyo ilaahay wuxuu ku yidhi markaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam marka sidaasi dhacdo tasbiixsaa lagu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam idan ayuha alaxiba haddaad dhibi ku hayso iyo haddaad badhaadho ku hayaba labadaba tasbiixda lagama maarmo labadaba marka aad dhibtu ku haysatana ilaahay dhibtu kaaga faydaya waa koow qalbigaaguna wuu ku samaanaya waa laba marka badhaadhuu ku haysta haddaad tasbiixda badisana cujbiga iyo kibirka iyo isla weynida iyo xanuunnada qalbiga ku dhaca kaa baxaya waxaad noqonaysaa qof muslimoo mutawaadica oo aan kibir iyo qooq haynin qof adduunku gacantiisa uu ku jiro ee aanu qalbigiisa degin qof alle ka baqaya badhaadho iyo barwaaqaba iyo dhib iyo kadeedba ilaahay ka cabsanaya haddaba ilaahay kitaabkiisa waxaa rabbi inooga warramaya kownkan aynu ku noollay dhammaantii inuu tasbiixsanayo waxaynu dhex degannay kown dhammaantii tasbiixsanaya adigu ha noqonin ka khilaafa aqalaynta inta ilaahay diidday ayuunbaa mukhaalif ah ayaa inta tasbiixda ku yartay ama diidan ama kownkaynu universka dhammaantii wuu tasbiixsanaya baa qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya 13 aayadood oo 11 suuradood oo kale nooca ku jira ayaa dhammaantood tilmaamaya kaa'inaadkaynu la noollay inay tasbiixsanayaan fii suurati الracd fii suurati اlisra fii suurati اlanbiyaa fii suurati الtawba saba fii suurati saad حديد الحشر الصف الجمعة التغابن
suwarkaasoo dhan ilaahay wuxuu ka warramayaa kownkanaynu ku noolahay inuu tasbiixsanayo wayusabbixu الracdu bixamdih wasakharna maca daawuuda aljibaala yusabbixna waطayr ilahay wuxuu ka warramayaa buuraha shimbiraha daruurahan iyo onkadkan iyo hilaacan iyo waxaan baxaya kaa'inaadkao dhamm inuu tasbiixsanayo tusabbixu lahu الsamaawaatu الsabcu wاlard waman fiihinna ilaahay wuxuu leeyahay samaawaadka toddobada ah iyo dhulka iyo waman fiihinna waxa ku hoos jiraaba waa u tasbiixsanayaan wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman gafuura dunidaba wax ma jiraan baa ilaahay leeyahy ilaa iyo ilaahay buu u tasbiixsanayaa laakiin idinkaan garanaynin qaabka tasbiixdooda ay u socoto idinkunbaa fiqigu idinku yariyey fahamka aa fahmi lahaydeen jamaadaadkan iyo noolaha kan iyo makhluuqaadkan qaabkay u tasbiixsanayaane alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi الsamaawaati wاlأrdi wالطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun iyadan arkayn baa ilaahay leeyahy waxaa cir iyo dhulba jooga iyo shimbiriba iyo baalasha kala faafinaya inay ilaahay u tasbiixsanayaan cid waliba qaabka ilaahay ugu cibaadaysato way taqaanaa ee idinkunbaa fiqigeedu idinku yaryay salaadooda iyo tasbiixooda idinkaa fahmaynin